بسم الله السلام عليكم كسو دواada Zainab Qali Cookings waxaan caawa sameysanaynaa rooti yar oo fudud maasha Allah oo macaan badan oo softi ah sidaan u sameeyay waxaan ka sameeyay asxaabta sharafta leh daawasho wacan haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe taabo kadibna gambaleelka si aysan ku dhaafin wixii aan soo dhigno insha Allah haddana waxaan guda galaynaa rootigeeni insha Allah hadduu Allah awoodo la karhaa noqdo sida loo socdo asxaabta sharafta leh waxaa weelka hadda iigu jiraa 3 xabo oo ukun ah nus koob sokor ah waxaan ku daraa in yar oo cusbo ah isku walaaqayaa waxaan ku daraa koob caano ah waxaan ku daray leebito ama fixiso hadba saad u taqaanaan waxaan ku daray in yar oo qorfo ah waxaan ku darayaa baking powder in yar vanilo haddana waxaan ku darayaa faro saliid ah waxaan rabaa rooti yar oo jilicsan oo maasha Allah inuu ii noqdo hadduu Allah awoodo la karaan noqdo sida la socdo asxaabta sharafta leh si fiican markaan isku walaaqo haddana waxaan ku darsanaynaa burkeeni waxaan ku darayaa 3 koob oo bur ah asxaabta sharafta leh nin walba waxay ku xirantahay familkiisa intuu yahay isku qasayaa hala ayaan burka ugu shubaa hal mar kuma wada shubaayay intuu qoyaanka iiga deeqo insha Allah haddana burka inta kale ayaan burka ku darayaa waan qasanay wuu noo soo qamirayaa waxyar ayaan yara daboolaa haddana wuu noo soo qamiray dib ayaan u xashayaa burkaas ayaan ku sharaxayaa
kan yara fidiyo kuna ayaan korka marinayaa iyo caano yar oo isku soo garaacay. waxaan korkaga dadaadiyay sisin. maasha allah markuu dabka nooga soo baxay sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay asxaabta sharafta leh waad u jeedaan. maasha allah waa baal yaroo jilicsan oon laga sheekeyn karin inaba caadi ahayn. walaakin Zainab Qaali oo idin la like subscribe share la wadaag asxaabtaada wixii comment hoos noogu reeb. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.